السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتا سو dhawaada mar kale maanta waa khamiis waana 19 bisha 6 ee June sanadka 2025 muuqaalkan waxaan rabaa inaan idin kula wadaago golaha amniga qaranka Mareykanka oo hadda kulan degdeg ah qolka situation roomka uga socdo iyadoo la filayo go'aanka madambeysa in Mareykanku dagaalka uu galo iyo in kale inay ka soo bixi doonto duqeyntii xalay ay Iran u geysatay Israa'iil ayaa waxay ku weerartay isbitaal Israa'iil saaka waa ay ka jawaabtay waxana ra'iisul wasaaraha Israa'iil iyo wasiirkiisa gaashaandhigaba ay leeyihiin qof ka caagan ma jiro duqeynta aan Iran ku hayno hadda waxay u muuqatay inay go'aansadeen in hogaamiyaha sare ee wadanka Iran Ayatollah Ali Khamenei ay dilaan diyaaradihii Mareykanka u tagi lahaa wadamada Qatar iyo Imaaraadka oo la kansalay hadda xaaladdu meel xun ayay maraysaa Iran oo iyaduna caawa ku hanjabtay in waxyaabo la yaab leh ay dhici doonaan arrimahaasi oo ayaan idinla wadaagayaa muxuu yahay hubka aysan Israa'iil haysan oo Mareykanka ay ka doonayso inuu u adeegsado goobaha nuclearka ee dhulka hoostiisa ku yaala ee Fordow oo Iran ay leedahay arrimahaasi ayaan idinla wadaagayaa balse marka hore soo dhawaada ka taagan bariga dhexe saacadda ka dambaysa waa ay sii xumaanaysaa maalintii toddobaad ayuu horta dagaal ka socdaa shalay galinkii dambe waxa ogeyn madaxweyne Trump iyo golihiisa amniga qaranka inay kulan ku yeesheen qolka situation roomka ee aqalka cad Trump waxa laga dhaadhiciyay qorshaha Mareykanku uu ku duqeynayo Iran laakiin go'aankii kama dambaysta ahaa ee go-aheedka ahaa fuliya ku dhaqaaqa ayaa dhinaa hadda waxa la leeyahay kulan degdeg ah ayaa qolka situation roomka uga socdo madaxweyne Trump iyo golihiisa amniga qaranka madaxweyne ku-xigeenka JD Vance ayaa ka qayb galaya wasiirka gaashaandhigga Pete Hegseth ayaa ka qayb galaya taliyaha sirdoonka John Ratcliffe ayaa ka qayb galaya ergeyga gaarka ah ee dowladda Mareykanka u qaabilsan bariga dhexe Steve Witkoff ayaa ka qayb galaya xitaa waxa la arkayay Steve Witkoff oo telefoon ku hadlaya oo earbuds ay dhagaha ugu jiraan oo banaanka taagan ka hor intii uusan galin qolka situation roomka marka kulankan hadda waxaa la filayaa hadiiba daqiiqadaha soo socda oo soo go'aan ka soo bixin in saacadaha soo socda uu ka soo baxo go'aan ah Mareykanku in uu si toos ah u galo dagaalka oo duqeeyo goobaha nuclearka ee Iran ay leedahay ee dhulka hoostiisa ku yaala marka arintaasi waxay tahay arinta kulankan hadda looga arinsanayo muxuu yahay marka hubka uu Israa'iil aysan haysan oo Mareykanka ay ka doonayso inuu adeegsado goobaha nuclearka ee dhulka hoostiisa ku yaala hubkaasi waxa la yiraahdaa the bunker busters waa godadka dhulka hoostiisa waxyaabaha ku yaala waa hubka dhulka jeexa oo ah midka ugu weyn oo Mareykanku uu haysto marka laga soo tago hubka nuclearka waa bamka ugu weyn oo uu haysto waxa la yiraahdaa GBU 57 ayaa la dhahaa culeyskiisu waxa uu dhan yahay 30,000 oo pound halka waxyaabaha qarxa uu xambaarsan yahayna uu yahay 620 feet ayuu dhan yahay waa gantaalkan aad arkaysaan marka dhulka marka goobta lagu rido dhulka ayuu jeexayaa ilaa iyo meesha loogu talagalay oo tago diyaaradaha B2 bombers la yiraahdo ayaa xambaara waxa la leeyahay Mareykanku 2 ilaa iyo 3 bam waa inuu u adeegsadaa maadaama goobahaasi nuclearka ee Fordow ku yaala dhulka hoostiisa ilaa iyo 3,000 oo feet ay dhulka hoostiisa ay jiraan marka arintaasi ayaa Israa'iil ay ka doonaysaa Mareykanka ra'iisul wasaaraha Israa'iil qaabkan oo ugu sharaxay Mareykanka waxyaabaha uu uga doonayo qaab kubadda cagta nooceeda oo kale ayuu ugu sharaxay Netanyahu waxa uu leeyahay Mareykanka wax kasta waan u karinay hadda waa ay bisil yihiin sida kubadda cagta oo kale marka ayuu ugu sharaxay marka waxa uu yiri dhamaanba difaacyadii dadka naga soo horjeedo waan baabi'inay macnaha waan dhaafnay waan ka dhaxbaxnay macnaha wuxuu ka wadaa saraakiishii ciidamada waan dilnay saynisahanadii nuclearka waan dilnay marka hadda wuxuu yiri waan soo baasnay dhamaanba ciyaartoydii kubaddana waxa aan bokiska u dhignay oo aan u baasnay dowladda Mareykanka marka ciyaartoydii dhan waan soo baasnay marka saraakiishii iyo saynisahanadii waan dilnay hadda marka goobta rigoorada kubadda laga tuuro ayay Mareykanka ay u taalaa ayaga iyo goalkeeperka ama boortiyeriga oo kaliya ayaana goolhayaha ayaa hadda is hor taagan marka waxa la doonayaa goolka inuu Mareykanku dhaliyo sidaasi ayaa Netanyahu ugu sharaxay in dowladda Mareykanka waxyaabaha ay Israa'iil ka doonayso inuu u qabto marka waxa uu leeyahay anagu difaaci waan soo dhaafnay ciyaartoyda dhan waan soo dilnay kubadda waxaan idin dhignay adiga goalkeeperka oo kaliya ama goolhayaha ayay idin taagantahay marka inaad dhalisaan oo kaliya ayaa loo baahan yahay wax micnaheedu waxay tahay anagu goobihii nuclearka dhan waa baabi'inay taliyaashii ciidamada waan soo dilnay goobaha nuclearka intii ay baabi'in kareen waa marka goobtan dhulka hoostiisa ku taala ee Fordow la yiraahdo oo loo maleynayo hubka nuclearka inta badan in Iran ay ku sameysanayso adinka ayaa la idinka doonayaa goolkaas inaad dhalisaan oo aad meeshaasi aad burburisaan
marka duqayntii xalay ay Iiraan u geysatay Israa'iil Iiraan habeen kastaba hub cusub ayay isticmaalaysaa ama gantaalo cusub ayay u isticmaalaysaa hadda gantaalo xitaa gantaalada difaaca ee Israa'iil u gambinaya ay habeenadii u dambeeyay isticmaalaysay caawaran waxay leedahay waa jimco xitaa habeenada kale waa uu ka duwanaan doona marka maxay soo wadaan oo kale xalay markii isbitaalka markii ay duqeeyeen oo Beershacba ku yaala 72 qof ayaa ku dhaawacantay Netanyahu iyo wasiirkiisa gaashaandhigga waxay yiraahdeenba Iiraan waxa ay wadaa inay duqeyso goobaha shacabku ay degan yahay iyo isbitaaladii arintaasina uma dul qaadan doono marka markii iyagu Gaza ay duqeynayeen isbitaaladii ay baabi'iyeen iskuuladii ay baabi'iyeen dhamaanba shacabkiina ay baabi'iyeen oo 100 kun ku dhawaad ay dileen iyaga waxba ma aysan la ahayn marka Netanyahu wuxuu amray in ay goobo istiraatiiji ciidamada Israa'iil ay duqeeyeen ay IDF-ka goob nuclear ay saaka duqeeyeen ayaa sidoo kale la leeyahay waxaana wasiirka gaashaandhigga uu leeyahay sidoo kale arintaasi ma ahan mid aan u dul qaadan karo Iiraanna waa ay ka shalayn doontaa Mareykanku xitaa waxa uu bilaabay in diblomaasiyiintiisa uu ka soo daadgureysto dalka Israa'iil iyadoo sidoo kalena Jordan amaba Urdun ama Masar ay imaanayaan Shiinaha iyo Australia sidoo kale waa ay sameeyeen marka xaaladdu waxay u muuqataa in ay ka sii dareyso diyaaradihii Mareykanka ee shacabka ah ee hadda shacabka u daabuli jiray in Imaaraadka Carabta iyo Qatar dhamaanba falaajadii hadda waa la kansalay waxa laga cabsi qabaa xaaladdu inay ka sii darto sida muuqata marka shirkan hadda golaha amniga qaranka uga socdo aqalka cad gaar ahaan qolka situation room ayaa la filayaa go'aanka ka soo bixi doona hogaamiyaha sare ee wadanka Iiraan Ayatollah Ali Khamenei waa kii Mareykanku uga digay haddii military ahaan ay u soo farageliyaan cawaaqib aysan ka soo kabsan karin in ay ku dhici doonto Mareykanka 40 kun oo ciidamo ayaa ka jooga bariga dhexe sida Kuwait Bahrain Imaaraadka iyo meelo badan marka cabsida halkaasi ay Mareykanka ay ka haysataa ra'iisul wasaare Netanyahu waxa uu saaka leeyahay qof ka caagan ma jiro duqeynta aan ku hayno Israa'iil halka wasiirka gaashaandhiggana uu yiri uma dul qaadan doono in uu sii jiro amaba uu sii noolaado Ayatollah Ali Khamenei sida muuqata marka hadda waxa ay Israa'iil go'aansatay inay disho hogaamiyaha sare ee wadanka Iiraan Ayatollah Ali Khamenei ra'iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu hore ayaa loo weydiiyay waxa la yiraahdaa haddii aad dishaan Ayatollah Ali Khamenei soo xaaladdu kama sii dareyso maya ayuu yiri markaasi ayuuba dagaal ku dhamaanaya marka ma dhamaan doona mise waa sii socon doona walow madaxweynaha Iiraan hadda wali uu nool yahay oo isaga aysan u muuqan hadda inayba bartilmaameed ay ka dhiganayaan oo nin dhexdhexaad oo u muuqdo lala heshiin karo wayna arki doonaa waxyaabaha ka soo kordha laakiin xaaladdu saacadba saacadda ka dambeysa waa ay ka sii dareysaa halkaasi ayayna hadda mareysaa shirkan marka golaha amniga qaranka ee Mareykanka ay u fadhiyaan waxyaabaha ka soo baxa ayaanu arki doonaa oo la wada sugaya markii aan duubista muuqaal ka dhameeyay ayaa shirkii aqalka cad uga socday golaha amniga qaranka ee Mareykanka situation roomka oo soo dhamaaday ayaa arkay madaxweyne Trump marka waxa la leeyahay hadda waxa uu go'aansaday labada toddobaad ee soo socda inuu go'aan ka gaari doono in Mareykanka uu duqeeyo goobaha nuclear-ka ah ee wadanka Iiraan marka go'aan degdeg ah ma jiro Mareykanku sida muuqata arintan kuma degdegayo duqeynta goobahaasi waxa uu sidoo kale xitaa wasaaradda gaashaandhigga uu weydiiyay saraakiisheeda in hubkan la yiraahdo the bunker busters-ka ay burburin karaan goobtaasi maadaama dhulka hoostiisa ilaa iyo 300 oo feet ay ku jirto marka hubkan sida ay sheegay waa hubka ugu weyn oo Mareykanku uu haysto marka laga soo tago nuclear-ka marka labada toddobaad ee soo socota ayaa Mareykanku go'aan uu ka gaari doona hadda labadii ilaa saddexdii maalmood oo la soo dhaafayay waa markii saddexaad oo golaha amniga qaranka ay kulan ku yeeshaan qolka situation roomka sida aan ognahay dagaalkan waxaa cambaareeyay madaxweynaha wadanka Shiinaha Xi Jinping midka Ruushka Vladimir Putin oo yiraahdeen Iiraan Israa'iil waa ay ku qaldanay dagaalkan ay Iiraan ku qaaday halka sidoo kalena ra'iisul wasaaraha wadanka Ingiriiska Keir Starmer uu yiri madaxweyne Trump waa inuusan xaaladda uusan sii kicin oo hadda xaaladda la dejiyo marka warkii ka soo baxay aqalka cad iyo qolka situation roomka waxa uu noqday Mareykanku in uu Iiraan duqeeyay in kale in labada toddobaad ee soo socota uu go'aan ka gaari doono dhinaca kale aaladda TikTok waxaan ogeyn shirkadda iska leh ByteDance xilligii Biden in sharci la saxiixay oo ah in Mareykanka laga mamnuucayo haddii shirkadaasi aysan shirkad Mareykan aysan ka iibin Trump markuu yimid laba mar ayuu muddadaasi kordhiyay ilaa hadda lama helin cid iibsata hadda maanta ayay ku ekayd 3 bilood oo uu ku kordhiyay bishii February
maanta oo 19 ayay ku ekayd haddana 9 maalmood oo kale ayuu Trump ku kordhiyay waxa uu sheegay in ilaa iyo bisha 9 ee September 17 sanadkan 2025 ay TikTok uu sii shaqayn doono laakiin wali wada hadalkii ayaa socda arrimo kale oo ka muhiimsan ayaaba soo baxay oo arrimahan dagaalka bariga dhexe ay kamid yihiin marka wayna arki doonaa TikTok isagana nafsad ahaantiisa 9 maalmood ayaa hadda lagu kordhiyay waqtiga uu Mareykanka ka sii shaqaynayo oo Trump uu ku kordhiyay ilaa intaasina waa in la helaa shirkad iibsato haddii kale Trump wili maadaama uu taageersan yahay waxa laga yaabaa haddana muddo kordhin kale inuu u sameeyo waxyaabaha kale ee soo kordha waa idila soo siin doona asxaabay aad iyo aad u mahadsantihiin intaan markale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waaro idin la sidaa iyo nabadgelyo